dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan shacabka ku nool magaalada Kismaayo ayaa waxay maanta ka dhaceen gudahan magaalada Kismaayo waxaana gabi ahaan xiran goobaha ganacsi ee ku yaala gudaha magaaladaasi. Banaanbaxyada ayaa looga soo horjeedaa cunaqabataynta iyo xayiraadda diyaaradaha magaalada Kismaayo oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay deegaanada uu ka maamul goboleedka Jubbaland. Banaanbaxyada ayaa marka ka sii dambeysay ku xoogeysanaya gudaha magaalada Kismaayo waxaana ay ku faafeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi dadka isugu soo baxay kuwa oo ay yihiin kuwa aad u careysan. Dadka shacabka ayaa sheegaya in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay go'doomisay gobol ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ay maamusho. Shacabka Jubbaland oo iyagu dhigaya dibadbaxyada ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in ay isku soo dhawaansho ka shaqeyso balse aysan ka shaqeynin iska horkeenida ummadda Soomaaliyeed. Marka laga yimaado shacabkani ku dibadbaxaya magaalada Kismaayo ayaa dhinaca kale waxaa jira barakacayaal ku nool magaalada Kismaayo kuwa oo sheegaya in lagu qasbay in ay dibadbaxyo ay dowladda ay kaga soo horjeedaan ay ka dhigaan gudaha magaalada Kismaayo. Mid ka mid ah dadka barakacayaasha ee isagu ka mid ah dadkii la soo qasbay in dibadbaxyada ay ka dhigaan gudaha magaalada Kismaayo oo la hadlay raadiyaha Simbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlayaa dibadbaxyada ka dhacaya magaalada Kismaayo iyo sida loo soo qasbay shacabka ku nool gudaha magaaladaasi. maamulka Ahmed Madoobe qadan qaaday Soomaaliya ee ka horjeeday meedaray walaaga iyo go'aamadii iyo sheegan oo eray dowladda meedaray Kismaayo ku doonay hamaraadka magaalooyinka gudaha leeri taasoo la ka horjeeday warqado meedaray meedaray oo wasiirada hay warqado iyo sheegay eray meedaray degano dad sakiina anna irabti baan dadar andugay kala halqabado guryaha dhigay walaalada demokrasi jane oo ku sheegta wada ay naagti kaan kamadu madu kooy laakiin kooyaga dadka min kala jigay irabti wadakii araga meelin alan warnin diidi alan ki Jubbaland iyo sawirki Ahmed Madoobe nin diidi nin aragan dad qasab oo hood liqaayana dhibaato ka jarno farmaajino khayr muqab walaamu munoqabada oo maryaanti meelin fidi munoqabada من كان كجرنا إسرع كجرنا من يالك إسكاك الجدي أو بابورتو سارناي ولك جدي حتى بها وين علي ولا بتقدران كحاجة برتي كذي بتقدرات شنو في رفع بتقدرات أكون جيش ذا كها ملك كها ما أنا بتقدران عندي دولي ولا شيء مدور على رفع كجرنا فرماجي عن راي جانو مش عن قال جري جانو لكن قبل أن قبل أن نكون رفع نبرين asigoo sii hadlaya iyo dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday in ay ka qabtaan madaxweynaha maamulkaasi ee Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe oo ay sheegeen in uu yahay mid caburin iyo dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka ku nool magaalada Kismaayo. waa ki gabagabeeyay hoobanan ku min qabad karno aan rabay hamar aan jeeyo meelo ay shiigiyo emailad aan jeeyo meelo rabana ku qabno aad aan rabano wala ugu raadimkiini dadira walba iyo nin walba nin kooyo baha ma unu madaxweynaha ma nin qasbay masaakiin baana maatigaana lagaba yaraabu dadka tani markii magaalada Kismaayo lagu doortay madaxweynaha maamulkaasi Ahmed Maxamed Islaam ayaa haddana waxaa sii barbar socda madaxweynayaal kala sheegtay inay yihiin madaxweynaha rasmiga ee maamulkaasi. Hay'adda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay marnaba aysan aqoonsaneyn natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka ka dhacay magaalada Kismaayo.